ballan qaadaynaa haddaanu nahay wasaaradda arrimaha gudaha go'aanada soo baxa oo aan in badan dareensanaa in fulinteeda xukuumaddu ka warwareegi jirtay go'aanada soo baxa ee halkaa ka soo baxa inaanu fulinayno waxaan marka hore u mahadnaqayaa ciddii hindistay in halkan lagu qabto kulankan masaajidka waxaa muuqata meel kulan lagu qabsado inay meeshii ugu khayrka badnayd ay tahay waxaad ka garanaysaa wax sacab oo dhacay ma jiro xafladaha buuq iyo qaylo iyo meelaha la isugu yimaado waxaad moodaa masaajidku inuu meeshii ugu munaasibsanayd uu yahay waanaynu asiibeen ciddii soo jeestay ilaahayna khayr ha ka siiyo hadalkaygu laba qodob baan ka dhigayaa mid waa dardaaran guddida dhexdhexaadinta ee arrintan u fadhida midna waxa weeyaan guddiyada loo garnaqayo midaan odhanayo midna waxa weeyaan wasaarad ahaan wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga shaqada aanu ogeysiiskaanu bixinayno saddexdaa qodob baan ka dhigayaa arrintan nabadaynta anigoo in badan waxaan odhan jiray maxaa khaldan markaanad goobta joogin waxaad is leedahay waxbaa la hagraday oo dibadda aad ka joogto inta badan waxaan odhan jiray waxaa hagraday xukuumadaha ilaahay waxaan ka baryayaa maanta maadaamaan wasaaraddii arrimaha gudaha ahay inaanu arrintaa aanu ku guulaysano oo aanay hagrasho dambe aanay jirin maadaamaanu hore joognay waxaanaanu ballan qaadaynaa haddaanu nahay wasaaradda arrimaha gudaha go'aanada soo baxa oo aan in badan dareensanaa in fulinteeda xukuumaddu ka warwareegi jirtay go'aanada soo baxa ee halkaa ka soo baxa inaanu fulinayno oo aanu fulin doonno insha allah biidnillaahi alkariim oo wasaarad ahaan maadaama aanu wasaaraddii nabadgelyada qaabilsanayd aanu nahay amnigana qaabilsanayd aanu go'aanada shirka ka soo baxa fulin doonno aananu waxba hagran taasaanu ballan qaadaynaa oo ilaahay hortiisa aanu ka ballan qaadaynaa oo wixii halkaa ka soo baxaa aanay hadhowtaba labada beeloodba aanay qadhaadh ku noqon waayo gartu laba kama wada qorsisaaleeyey wixii arina ee lagu heshiiyo inaanu dabagallo oo dabagelkeeda aanu yeelanno ilaahay waxaan ka baryayaa madaxweyne ku-xigeenka waa markii ugu horeysay ee madaxweyne ku-xigeen arrinta nabadgelyada uu soo galo waxaan ilaahay ka baryayaa inuu ku guuleeyo oo isagana halkaa wuxuu fadhiyaa in uu daacadnimo iyo qalbi wanaagsan ayuu ku fadhiyaa in ilaahay taa ku guuleeyo madaxda kale ee ciidan kale ee janankii ciidanku uu marayo iyo wasiiradiiba ay halkan u fadhiyaan in dhammaanteenba ilaahayna guuleeyo dhiiggaasi aanu dib dambe u soo noqon ayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala weydiinaya talabaad qolada loo garnaqayo waa habar lamaan magacaasaad lahayde taariikh baad lahayde waxa weeyaan 10 sannadood ee miiriyuu soo baxay ayaa dagaalkiinu dhowr iyo 10 sannadood buu ahaa ugu dambeeyay boqolaal sannadood oo la soo jiray baan xabadiin ka dhexdhicin ilaahay waxaan idin weydiinayaa oo inay qalbiyadiina uu galiyo inaad dad walaala aad ahaydeen oo sidaad isu dhasheen iyo sidaad xigaalka u tihiin aan cid Soomaaliyeed oo aani jirin rag baa markaaba u talinayay raggii markaa u talinayay ayaa taa dhigay inay nabad weligoodba ahaadaan bahayay darays tii inay idin soo noqoto raggiina joogaana rag qiimo badan baa tiino marxaladii uu baa kordhay in tii aad maantana ku soo celisaan oo maanta waad wanaagsan tihiin ay taasina inoo hirgasho insha Allah halkaa waxaad la fadhidaan qalbigiina masaajid baynu ku jirnaa qalbigiina wanaag geliya inaad ku guuleysanaysaan geliya waxa weeyaan niyadda waxaad gelisaan baa ilaahayna aqbalaaye niyadda wanaajiya guddida dhexdhexaadinta arrintan oo kale marka dad la dhexdhexaadinayo waa xaakim ragga maraya ee halkan u ah oo ugu horeeyo gudoomiye u yahay Suldaan Maxamuud Guuleed waa nin sheekh ah waa nin aan rajaynayo in uu
aakhiradiisa ka horaysiinayo wax kasta oo danta kala dardaari maayo wax xusuusin arimo badan baa jira oo haddaad maqasho caydiid gar leh calina gar leh oo maslaxad inta badan lagu sameeyo waxa weeyaan waxa ka wanaagsan in la sheego marka garta la qaado sida loo kala leeyahay oo la yiraahdo waxaasi qoladaasi halkaasay leedahay marka la yiraahdo wixii lagu xukumo sida loo xukumo qolada gardaradu wadadana la sheego la yiraahdo halka waxaasad ku gardarantiin qoladaanina waxaasad ku galantiin wixii maslaxana la galo markaa oo aan inta aan waxba la taaban aan maslaxa uun la gelin ee ay ka horayso in wixii la sheego oo qolo waliba say u qanacdo arintaan u aragnay halka inaad idinku taa wax ka bedeshaan taa wax ka bedeshaan waxaan go'aaminayna waa waxa ugama baqsani wax ilaahay ku og yahay oo daacada inay u gelayaan ugama baqsani idinkana waxaan leeyahay waa arin culus horaad u gasheeno weynoo dhowda waxaan kaloo soo jeedinayaa arin qaran baa socota oo qaramayna madaxweynuhu maalintii wuxuu sheegay inaanay isku xidhnayn hawsha kalena waa la barbar wadaya tanna horaa loo galo dee aad guddidan u siiseen kalsoonida wixii oo dhan way hayaan inaad inoo soo ururisaanoo idinkuna aydan ficiltan dhexdiina gelina wixii la dhaafi karo waa la dhaafaaye aad wixii la dhaafi karaba inaga saartaan oo aad arinka wanaag iyo marna gar cadaawa la naqaa marna gar nasteex in badan baad gar cadaawa naqayseene gartii cadaawa maanta ka saara oo gar nasteexa oo walaalo idrays iyo bahaa oo koodii hore ah insha Allah kaasaan rajaynaya nolosha maan arag sidaad isu dhasheen cid la isu dhashay maan arag Soomaali in badan baan maray koona aanan marin ma jiro Somaliland meel aanan istaagin way yartahay dhulka Somaliland meel aanan tegin way yartahay dhaqankoodana in badan baan eegay sidaad idinku isku tiin wax isku ay ma jiro ilaahay taa haynoo aqbalo awaamirtaana waanu fulinaynaa hadhowna waanu fulin doonaa wixii go'aanada ka soo baxa inaan isku ceebsan qadaar haday noqdaana waanu gelaynaa maanta wax lagu garnaqi doono war uma hayno wixii lagu garnaqo waanu daba gelaynaa waxaan rajaynaynaa wax wanaagsan oo idinkoo qalbi wanaagsan inay ka soo baxaan annana aan ku faraxno